السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادة يوتيوب كينا Somali Youth Scholars. هدي أنو عصبته ولا الله مركي كوادا سو بوقت يوتيوب كا سو دوين كليناي يوتيوب كاني ويوتيوب أن كعبنو رلنت الصوماليات ميل والباقي جوجان أنا وهل كانوا بسوق بينينو فرصة ذاك جرمان تدوني على هذا لو يكمل تايد ياخذ واحد برش هذا سيدا برنامج ذا جرين كان لوتري سيدا أنا كلاي تي وحياة كل ولا متكا إن شاء الله maanta mawduucan wuxuu ku saabsanaani doonaa qaas ahaan dadkii ku guuleystay DV Lottery-ga. marka koowaad waxaan idin leeyahay hambalyo dhammaan dadkii ku guuleystay. haddii aadan ka mid noqonin sanadkan dadkii ku guuleysanin dadkii ku guuleystay haddaadan ka mid noqonin fadlan niidaas ka jabanin. waxaan ilaahay wuxuusan kuu qormaysan ahayn calafmaadan u yeelanin. soo sanadkani bisha 10 insha Allah maladu furmi doona markaas naxareeso. marka waxa way waxaan wax lacag kaaga baxay maan iska xaray daawaysin wax baniid iska jabin calafka muusan dadka ku guuleysay fadlan waxaan idin leeyahay horta hambalyo teeda kaleeto arimahaaga aad ku guuleystay dadna hawshayn sababtoo ma ogid laguma balan qaadin in haddii aad ku guuleystay barnaamijkan in fiisa lagu siin doono America ma ogid midaas ilaa hadda. marka tusaale dad badan ka qaata Soomaali badan maanta oo ku mareynay interview Nairobi fiisa loo soo diiday just Nairobi kalimaan mis Soomaali ahaan kama hadla general guud ahaan ka hadla haddii aad ku guuleystay DV Lottery macnaheeda maahan inaad heli doontid fiisa. marka midaas niijab iyo kuxmeeniga maahan xaqiiqda sidaas. marka arimahaaga fadlan banaanka u bixinin si gaar ah adiga ku saabsanaadan familkaaga aysan ka baxsanaan doon ka bixiyeen dhaafin familkaaga sababtoo ma ogaan doonto berin uu siin doon. haddii lagu diidana dadkan u wada sheegto waxa waaye waa niyad xumo dadkii wajina ugu soo laaban doonta. marka dad badan oo ku farxi doonaan markaas. marka akhbaaraadkaaga waxay si go'an ku hadaan mawduucan oo soo laabano dad badan ay su'aal isoo weydiiyaan Telegram-ka email badan isoo diray dadku ku guuleystay aad u far badan hal iyo laba aan dhigi karin. marka su'aashu badan waxay is weydiinayaan hadda waa ku guuleystay tilaabada labaad aan rabo inaad sameeyo maxay tahay. sax waa saxan tahay meela wax ka bilowd moogid laakiin insha Allah videogeena wax walba ugu hadli doona insha Allah. haddii aan ku bilaabo waxa koowaad ani ahana is dhahayo khibrada isleeyahay u leedahay waxaani qofkaani waa loogu baahan yahay tilaabadan uu mari kara. hadda is dhahayo mid koowaad horta sida liska labada u gaay waxa loo baahan inaad buuxisid form lagu magacaabo DS260 formkaas la inaad buuxisid. laakiin anigoon formkaas ku hormarin hal shay mid koowaad fadlan isku day inaad haysatid. horta ma jiro wax dokumenti ah iyo warqada aad diri doontid aad soo qaadan doontid ma jiro. laakiin hal shay ay jira rabaa inaad ku sheego fadlan inaad si taxadir leh ugu fiirsatid. mid koowaad intaad formkan buuxinin ka hor aad haysatid isku daydaa koo baasaboorkaaga, labo shahaadooyinkaaga iskuulkii hadda jaamacadda meesoo kale shahaadooyinkaaga jaamacadda inaad haysatid fadlan isku day. sababta midaas u leeyahay waxay tahay akhbaaraadka kugu qoran baasaboorka iyo shahaadooyinka waxa ku qori doontaa formka DS260. formkaasi marka waxa loo baahan yahay wax baasaboorka ku qoran iyo shahaadada ku qoran inay iswaafaqsan yihiin. magaca aabahaaga oo shahaadada kugu qoran magaca aabahaaga baasaboorka kugu qoran sidoo kale magaca hooyadaada baasaboorka kugu qoran iyo magaca hooyada shahaadada kugu qoran inay isla haadaan fadlan isku day. sidoo kale daad xilliga dhalatay inay isla haadaan meesha ku dhalatay inay isla haadaan. marka baasaboorkaaga iyo shahaadooyinka haday iswaafaqsan yihiin dokumentiyada sax ay yihiin waxba ka qaldaneen markaas waa bilaabi kartaa inaad buuxisid formka DS260. laakiin haday weli waxay ka qaldan yihiin magacay isdoomarsan yihiin xarfay isdoomarsan yihiin fadlan isku day inaad dib u laabatid waxa soo saxid markaas imo formkaaga bedelo formkaaga buuxso DS260. sababta formkani waa formkii ku ogolaan lahay inaad fiisa lagu siiyo in kale waxa ku qoran meeshaan formkana ku qorta hadda ayaa maalinta interview lagu weydiin doona. soo hadana hadda waxaaba ka fiirsanin oo wax fiican aadan sax ah gudbinin haduu problem ku imaanay. marka mid koowaad waxa isku daydaa inaad baasaboorkaaga shahaadooyinka si saxan ah iska fiirsid inaad iswaafaqsanaada xogta ku qoran.
then waxa uu imaanaa inaad buuxino foomka DS260. foomka markaa buuxinaysid sidoo kaleeto intaadan buuxinin ka hor sidoo kale laba shay kale ayaa jirto oo raba inaan idin sheego inaad sii diyaarsatid. midda koowaad oo ah in markii aad Mareykan tegtid yacni aad tegaysid yacni guri address aad ku degtid qof inaad sii heshid hadda, sababtoo foomkan ayaa laga rabaa markaa buuxinaysid inaad ku boqortid. marka waxaa sii furaysaa address guri aad kusii degtid, qofkaas addresskiisa kuu soo diro, telephone numberkiisa, magaciisa kuu soo diro, then markaas waxaa foomka waa buuxin kartaa, waa gashan kartaa xogtaas. iyo sidoo kaleeto midda kale aan raba inaan idin sheego inaad intaadan foomka buuxinin inaad ka fiirsatid meesha interviewga ku marleed, wareysiga ku marleed, safaaradda ku marleed, inaad sii go'aansatid hadda, sababtoo ah foomkani waaye meesha aad ka dooran lahayd yacni meesha aad ku marleed interviewga safaaradda meesha ka dooran lahayd waa foomkan marka buuxinaysa ayuu ku jira safaaradda dooranaya, safaaradda doonaysa meesha inaad ka dooratid loo baahay. marka adigoona yacni go'aansanin foomka ku caran ha buuxinin, safaaradda arrin iska dooran. marka si taxadir leh u dooro safaaradda ku dhow, safaaradda yacni macquul ah meeshan arrimaha ku fuudaan kara. ani ahaan kuulma talina inay Kenya aadid, yacni meeshaas problemkeeda waa aragteen sanadkan waa lagu tusaale qaatay. marka ani waxaa is dhihi lahaa hadda Soomaali joogtid oo meel kale aadin aysan jirin, fadlan Djibouti ka dhigo, Djibouti ku fudud. Djibouti waxa waaye yacni hadda u baahtid aaditaankeeda tahay ka yar fudud Nairobi, maybe inay ticket ka qaalisan tahay laga yaabo. yacni uma baahnaan doontid visa ku baxid, yacni Soomaaliya la Djibouti visa uma baahnaan doontid, yacni ticket ayaa goosan doontaa waa aadi doontaa. laakiin waxay uun ka baahan yihiin markaa airportka tagtid yacni visa on arrival kugu dhufan doonaan, yacni markaa soo gashid airportka soo degtid waxa visa kugu dhufan doonaan qolada immigrationka. laakiin waxay ka rabaan markaa Djibouti tagtid airportka qof gurigiisa ku degtid, qofka u socdo gurigiisa ku degaysid yacni sharcigiisa ka rabaan. kuwa immigrationka ku weydiin doonaan wax ku dhigay inta u socota waaye maxaa Djibouti u maatay qofka ku degaysid sharcigiisa ka qoran doonaan, sababta u socotidna u sheegi doontaa. marka xogtaas ka haya Djibouti. marka aniga waxa ku talnaa inaad Djibouti ka dhigtid hadda waxa safaarad doorneys. haddii kalene oo aad Soomaali joogin, mesela aad joogteed wadamada Sudan, maybe aad joogteed Turkey, maybe aad joogteed Malaysia, meelaha safaarada way ku yaalan ka dhigo, safaaradaas ka dhigo. marka foomka marka soo buuxin kartaa waa markaa haysid baasaboorka, shahaadooyinkaaga magacooda iswaafaqsan yihiin, 1 2 address guri ah haysid Mareykanka, 2 safaaradda ah interview ku gali doonto markaa go'aansatid. saddexdaas markaa go'aansatid foomkaasi inaad buuxisid isku day, then foomkaasi buuxi. sidoo kale waxay jirto su'aalo badan ay soo weydiiyaan dad rabo inay foomka buuxiyaan, waxay dhaheen problema foomka la kulmeena markaa buuxinayno oo systemka markaa galno wuxuu leeyahay yacni your request cannot be processed at this time, wax guduudna noo soo qoraa waxaas ay ugu dhaheen. marka midaas waxa waa wax iska normal ah, waxaa isku daydaa inay heshid internet fiican, 2 yacni waqti qaada iswareerinin, yacni in adi maalin ka soo wareegto mar labaad fiiri, yacni sababtoo dadkiina rabaan inay hadda wada galaan waa foomkooda buuxiyaan. marka intaas waxa way wax problem kaliya ku isticmaal dadkana ka caawinay Soomaali kalimaan adduunka hore. marka waqtiga qaada waxba iswareerin, internet fiican hel. midda kale oo ah inaan idin sheego foomkani xilliga aad bilaabi kartid inaad buuxisid iyo xilliga ugu dambeeysa in la buuxiyo foomkani waqtiina ilaa intee gaar haysata. horta inaad buuxisid foomkani wuxuu bilaabanayay yacni si sax ah uu bilaabanaa markaa ku guuleysatid taariikh 7 ayuu bilaabanayay foomkani buuxitaankiisa DS260. then taariikh 7daas bisha 5aad 2022 ilaa waxa waqti haysta buuxin kartaa 2023 bisha 9aad taariikh 30 September 30keeda 2023 2022 ku dhin 2023 intaas muddo ayaa waqti haysta inaad ku buuxisid foomkani, waqtigaas ay haysta. then foomki in muddo haysta yacni intaas waqti haysta isdhiganin, sababtoo yacni mar walba dadku waxay u tixgeliyaan yacni number case number uma tixgeliyaan, uma fiiriyaan, waxay u fiiriyaan qofka sida loo soo kala diray foomkii DS260. qofaa waxa arkay 50,000 30,000 40,000 lambarkiisa oo interview dhaqso loogu wacay, qof waxa arkay maybe 500,000 10,000 oo waxa dib loo dhigay waxba loo wacay, sababtoo foomkii DS260 ayuu la dahay yacni waqti bilooyin kadib ayuu diray. marka hadda awoodid inaad dirtid dir,
laakiin iswareerin waqti qaado foomkaas inaad si saxan ah u dirtid intaas ugu muhiimsan. haddii foomkan wax ka soo qaado wax qaladid oo adoo wax qalad oo aad dirtid soo kale dib malaan iidan dib oo codsan kartaa oo lagu furi karaa dib oo sii kartaa dib oo dir kartaa laakiin intay saas dhacday yani siyaasan saas dhicin yani mar walba ka taxadir inaad wax saxan aad dirtid. markaani ka soo qaad waa dirtay foomkii then foomka markaad dirtid DS260 jawaab waxay sugi doontaa in muddo u dhaxaysa 3 bil ilaa 4 bil maybe inay yani ka badato laga yaabo inay ka badata taban ilaa 5 bil ay gaari marar qaar jawaab ay sugi doontaa then jawaabtaas markaa shid yani in waxaagi la fiiriyo ay sax yihiin then waxay sugi doontaa in lagu waco interview yani ma jiro wax document aad dir doontid sababtoo waa laga qaadaa waxa systemkaas maray jirtay markii document DS260 aad dirtid then jawaab ay sugi doontaa markii lagu dhaw sax waa document DS260 ay waa aqbalnay haddana waxay jirtay warqad dhalashay waxa dir jirtay hadda waxaas ma jirto waa laga qaaday waxa systemkaas hadda ma jiro then waxa toos ah lagu wici doonaa ay sugi doontaa warqadii second notification letter oo second news letter warqadaas ay sugi doontaa in ay heshid taasina waxa way aan warqadii balanta interviewga ayaa sugi doontaa then marka interviewga markii inta ay sugaysid then waxyaabihii kale aad isla documentiga inshallah si diyaarso inshallah arintaas marka la kaadi doono video kale ay hadii doono documentiyada la iska rabo safaaradda la tagi doontid laakiin inta ugu muhiimsan oo hadda saxda ah oo laga baahan yahay waa intaas foomkaas ina buuxisid foomkaasni si aad u buuxisid waxyaabaha iska fiir shahaadooyinka baasaboorada inay is waafaqsanaadaan safaaradda aad tagi doontid ina iska fiirisid addresskaaga oo yani xagga Mareykan gurigaas ina heshid isku day intaas. sidoo kale foomka DS260 waxa way sanadka hore video ka sameeyay si fiican u sharxay isla wadadii mar videogaas daabo inshallah qaybta linkiga hoose soo dhigi doona videogaas inuu ku anfici doona rajana 100% marka videogaas daabo waqti uma ina videos kale ku sameeyay laakiin waxa sameeyay doonadi mar waa soo dulmari doona video ka soo sameeyay doona mar labaad hadaa waqti u helo marka intaan waa xogta idin la wadaagay ay isleeyahay intaan ugu muhiimsan marka fadlan inshallah si taxadir foomka soo buuxi ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu yani arrimaha ku fududeeyo dadka aan ku guuleysanin waxa leeyahay nasiib wanaagsan inshallah alifkiin meesaneen marka السلام عليكم إن شاء الله فيديو هلا أنا كويكين دونا جزاكم الله خيرا السلام عليكم.